السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مرت الشرف استقبلت جدا فهد ويدا لبدا شيء بدون لبدا قال مرتي يوم كذا وفي بدونياشا يحضرها كسعودة حزبية ومعارضة وزير بعض الصحافة دمانتي با وانبسوا وينيا كسور غير يومك شركة أي هجامين يسوي وزارة أهلها البلد إلا نقول فرقاية تطوير وتصل نضوط سوماليلاند محايا قبستين حاولة سوري الوهد وفود الله يعتبر welcome to you all مرحبا بكم قريب صار أنت أيامك شيئين مدحدي Somaliland هذا الشيء وحاضرين لبا صدق قضاء Somaliland وقاره أي سمات قاره وده تاريخ الدنيا dadka Somaliland inuu yahay dad isku kalsoon oo isagu wax uriya oo wax dhisa oo dalkiisa ilaashada oo horumarka iyo xorriyadda jecel taariikhda uga marxaati karta Somaliland markii Afrika isticmaalku soo galayay dhammaan cid kastoo ajnabi oo timid oo dalka Somaliland markaa dadkii gubaysanaya ah heshiisay ayay la gashay ay ku ilaalinaysa danaheeda iyo dalkeeda oo ay leedahay martida guud Somaliland waxay taariikhda ku leedahay waa ummadii la dagaalantay gubaysiga 22 sanadood ee markii loo taag waayay ciidankii daraawiishta Somaliland waa meeshii ugu horeysay ee diyaarada lagu garaaco waxa markaa caalamkoodan dakhilta Afrika kowga in diyaarada lagu garaaco iyadoo u dagaalamaysa xorriyadeeda oo gubaysiga Somaliland waxa kale taariikhda ku gashay in ay tahay dalka qura ee gudihiisa dictator kula dagaalamay ee uu u adeegsaday diyaarada inuu ku dumiyo magaalooyinkii ee haddana ka guuleysay adkaysigooda iyo adeegooda birta waxay taariikhda ku gashay Somaliland dalka iyadoo oo dagaalka inta la ku dhacay oo magaalooyinkoodii la burburiyay oo dadka qorada ugu xamuuray haddana dooratay inay iyadoo dhisto nabadda isu taga iyo dawladnimada oo aan u adeegsan ama u yaran cid kale inay soo farageliyaan waxaana marxaatu ah 1995kii UNISOM markuu hogaamiyay General Haw inuu halkan dabcay oo xafiis ka furay UNISOM ama uu ciidan keeno oo Somaliland shacab guurti iyo madaxweyne markaa joogay xukuumadda iyagoo isu dhan ay diideen lagana xiray xafiiskii UNISOM Somaliland ay kaliya dhistay dawladnimadii ilaa ay soo gaarsay doorashooyin xor Somaliland calaamadaha soo gaaran ku dhaafay intii hore ugu horeeyay Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to address the participants of the important conference on Somaliland achievements and challenges ahead 27 years later. Particularly, I would like to express our appreciation to Somaliland friends who traveled from far to attend this important meeting. The government and the people of Somaliland are fully aware of the important role that Somaliland friends play in strengthening the relationship between Somaliland and international community and their tireless effort to help Somaliland achieve its development objectives and international recognition. History will recall the important role of Somaliland friends. Ladies and gentlemen, however hard we try, we cannot capture the tremendous achievements Somaliland has made in the last 27 years. Therefore, I would like to mention the most important ones. Peace and reconciliation among the Somaliland regions,
demobilization of the militias and establishment of Somaliland National Army Force, military, police, custodian, and intelligence forces. Referendum, state and institution buildings. Referendum on the Constitution, and has been approved by 97% of Somaliland voters. Implementation of the democratization process and holding of multiple rounds of peaceful, credible, free, and fair elections. Economic development and successful efforts to attract foreign direct investment. Chief among them is the expansion and modernization of the Berbera port. Somaliland's contribution to the regional peace and stability. The role we play in the regional economic integration through utilization of the soon-to-be expanded, modernized Berbera port. Ladies and gentlemen, during the last 27 years, Somaliland has faced a lot of challenges. Most of those challenges we overcame. However, there are still some challenges that we are still tackling, including the following: economy with limited resources, huge unemployment level, particularly among the youth, lack of international recognition, which impacts negatively on our ability to obtain our rights, including international economic support, especially from the international financial institutions. Limited resources for better infrastructure and development. Our government is continuously working on strategies to address these challenges facing us in the contemporary period. Ladies and gentlemen, we are closing the following changing dynamics and the policies competition in the region. The expansion and the modernization per port provides Somaliland with the opportunity to play an important role in the regional economic integration. Somaliland plays an important role in the peace and security of the region, which we spend considerable amount of our limited resource. Somaliland is an oasis of peace and stability, free from the scourge of terrorism and piracy. You have a lot of things to deal with in the conference, so I do look forward to see your views and recommendations on the way forward for Somaliland Republic, including the aforementioned challenges. Thank you all very much. qodobka kale ee loobay ee Somaliland gaarayda waxa weeye Somaliland waxa leedahay xisbiyo mas'uuliyiin oo bisil inay dalkooda dhisaan caaliyan xaafid waxaana ammaanaynaa oo soo dhaweynaya dhalinyarada iyo tusaaleynta dalka lagu dhisay ee xisbiyada mucaaradka anigoo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka labadaba inay yihiin shacabkooda taageerayaashooda iyo madaxdooda dad muwaadiniin oo jecel horumarinta dalka dalisha ay soo jeediyaan waa u bogaynaa waayo dalka kudhisayana waxayna leeyihiin hawsha sii kordhiya faraska hawsha waxa lagu dhuftaa hadheeray dad badan oo dhageysta oo qaata cadaawad iyo xumaan dad badan baa u qaata in is cadaawad iyo xumaan waa haween qaranka u hayaan way ku ammaanayeen waana soo dhaweynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh